Waxaan joognaa saldhigga warta nabadda oo 40 saac la soo dhaafay uu ka socday howlgal lagu soo qabanayo mootooyinka sharci darrada ah sida iyo si guud ahaan gobolka oo dhan saldhigyada kala duwan waxaa ka socday howlgalkaas oo lagu soo qabtay ku dhawaad 600 oo mootooyinka loo yaqaan vehicle ama kuwa labada lugood leh saldhigga warta nabadda hadda aan joognana waxaa ku xareysan ku dhawaad 120 mooto guud ahaan mootooyinkan waa mootooyin falalka amni darrada degmadan ka jira ama gobolkaba qayb ka qaadanay oo shacabka magaaladan degan runtii meelo aysan gaadiid ku mari karin ay maraan waana mooto sida intuu qofku mari karo maraa ma u baahna jid ka xiran wada ka xirmi mayso runtiina shacab badan oo magaaladan degan ee dhibaato loogu geystay 40 saac riboodyada aan helayno oo saldhigyadii midna waxay sheegayaan inaysan jirin wax dhacdo ah oo ka dhacay degmooyinka oo ku saabsan mootooyinka waxaana habeen walba imaan jiray report degmo walba ama saldhig walba mootadan oo dhibaato lagu geystay oo dhacdo ah marka ilaamaha amnigu ayagoo ka duulaya taasay waxay sameeyeen howlgalkaas oo la rabo in lagu xaqiijiyo kuwa sharciga leh iyo kuwa aan sharciga lahayn mooto walba oo degmooyinka gobolka Banaadir ka howlgalaysana waxaan u soo saarnay go'aankaasana rabnaa inay qaataan haddaba maamul gobolka Banaadir iyo laamaha amniga gobolka Banaadir ugu horeey booliska waxaan soo saarnay go'aankaasna wuxuu sheegayaa in mooto walba oo fekan ah aan ka rabno ay sharciga maraan oo ay tagaan CID-da halkaasna looga qaado faraha iyo wax walba oo lagu ogaanayo qofka milkiyadda iska leh ama la rabo in lagu hubiyo shakhsigaas inuusan ahayn shakhsi dambiile ah kadibna aan rabno inay tagaan fiisha governo ama fiisha traffico oo uu ka soo qaato qofka mootada wata sharciga ogolaanshaha inuu mootadaas wadan karo ama leesinka qof walba oo mooto fekan wata marka waxaan fareynaa ama amreynaa in uu tago saldhigga ugu dhow ee degmo walba si loo hubiyo sharciyadda iyo waxa uu ku haysto mootadaas qofkii aan tagin waxaan u ogaanaynaa ama u garanaynaa inuu yahay qof sharci darrada ama raba inuu ku dhibaateeyo shacabka dad badan hadda halkan mootadan 120 kan taalo waxaa la ii sheegay dad badan inaysan dib ugu soo noqon waxaana halkaas ka muuqata inay ahaayeen kuwa aan rabin inay CID-da maraan oo falalka liddiga ku ah amniga ee uga qayb qaadanaya marka annaga oo rabna inaan shacabka culayska ay qabaan iyo dhibaatooyinka ay la kulmayeen muddooyinka dambe ka duulayna waxaan sameynay howlgalkan waxaana nooga soo baxday inay qayb weyn ama dhibaatada amni darro magaalada ka jirta inay qayb weyn ka qaadanayeen qof walba marka oo mooto wata oo aan saldhig imaan magaaladana rabo inuu ku wato waxaan fahmaynaa inuu sharci darrada ama amni darrada uu qayb ka qaadanayo horay sida la socotaan waxaan sameynay howlgallo mootada bajaajka aan rabno inaan ku hubinno sharci ahaanshaheeda sida hadda halkan aad arkayseen taargooyinka ay wataan laba tixraaci karo oo ma noqon karaan taargooyin loo tixraaci karo waxaa ku xiran taargooyin fake ah oo la samaystay waxaa ku jira taargooyin hore oo dawladdu ay bedeshay oon hadda la isticmaalin qaarkoodna waxaa ku jira taargooyin mootada bajaajta loogu talagalay marka si taas loo hubiyo qof walba waxaan rabnaa inuu maro processka aan hadda ugu talagalnay qofkii aan marinna waxaan ka qaadaynaa talaabo sharciga waafaqsan waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.